su-aasha xigta nin maxamed la yidhaho magaalada hargeysa jooga ayaa soo qoray wuxuu leeyahay xaaskaygii ayaa rabaa buu yidhi inaan carruur u beero oo waxaan geeyay dhakhaatiir dibadda ah kadibna waxaa la yidhi ugxaanteedu waa daciif oo ma beermayso waxaa looga qaadi karaa qof kale marka xaaskayga labaad oo raalli ka inaan uga qaado ugxaanteeda ma uga qaadi karaa shareecadu maxay ka qabtaa labadayda xaas mid ka mida intoon qaado ugxanteeda ta kale ma ku beeri karaa maya laguma beerayo waa xaaraan waayo ugxanta waxa iska leh ilmaha waxa iska leh ta ugxanta leh marka tii aan ugxanta lahayna dhali kari weyday haddii ta kale ugxanteeda lagu soo wareejiyo ilmo aanay lahayn baa loo xambaariyey ama loogu abtiriyey ugxanta qof kale baa ilmahana dhalay oo hooye u ah marka tii ilmaha dhali kari weyda bilaa ugxanta noqotay ta kale ugxanteeda la siin maayo walad aanay lahayn baa la siiye wey marka arrintaasina waa xaraam